Osman Akram, Pakistan. عبد السمد Somali. Cuma Türkiye. Aftan Talay Begulu, Kırgızistan. Muhammad Ayub, Afganistan'dan. Teşekkürler. Morning, how are you? I'm fine. What's your name? I'm called Mohammed. Muhammad. I'm also Abdul Samad. I'm from Somalia. Where are you from? I'm from Sierra Leone, West Africa. Sierra Leone, West Africa. Nice to meet you. Me too. Thank you. Thank you. Yeah. bismillaahi raxmaani raxiim daawada kusoo dhawow barnaamijyadeeni daha inspires inoo soo gudbinaysay si usbuulla ah usbuucan barnaamijkeenu wuxuu ku saabsan yahay waa kiliib yar ku saabsan nolosha iyo safarka waxaan ognahay nolosha maanta aan noolnahay waxyaabaha aadka u sahlanaaday waxaa ka mid ah safarka in magaalo aad ka tagto magaalo kale aado wadan ka safarto wadan kale u safarto ama gobolkaaga wadankaada dhexdiisa aad maxaan ku yidhaahdaa ku dhex safarto يعني أهداف بدن iyo noocyo badan loo safraa noocyada loo safro waxa kamid ah waxa laga yaabaa safarkaaga inuu yahay safar waxbarasho yani Soomaalidu way xireen jirtay xirnimay aadi jireen cilmi iyo quraan iyo xadiis iyo fiqh baa loo safri jiray sidoo kale safarka noocyadiisa waxa kamid ah oo xillidan aad u soo kordhay safar dalxiis qofka inuu dalxiis aado shaqadii buu ka daalay ama maxaan ku yiraahdaa inuu nasto raba yani maxaan ku yiraahdaa yani dalxiis buu aadaya sidoo kale safarka waxa kamid ah waxyaabaha loo safro yani caafimaad xaalad caafimaad wadanka gudihiisa wax loo qaban waayo ayaa jirto yani sidaas darteed qof wadan kale uu safraya waxyaabaha kale sidoo kale loo safro waxa kamid ah shaqo iyo irsaaq raadin baa sidoo kale loo safraa yani safarkan muhiimad safaradan kala duwan dhamaantoodii muhiimooyin ay leeyihiin imaam Shaafici rahimahullahu ta'ala asigoo ka hadlaya safarka faa'iidada uu leeyahay ma faa'iidooyinka uu leeyahay wuxuu yiri yani tagarrab an al-awtani fi talab al-ula وسافر ففي الأسفار 5 فوائد تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد يعني إمام الشافعي سفرك وحكو شيغا إنو ليهي 5 فائدة فائدة كواد إمام الشافعي وحكو شيغا إنو سفرك داو يهي هميغا إيو استراسكا إيو ويلويلكا قفك بني آدنكا أو هايو sidoo kale cilmiga safarka faa'iidooyinkiisa waxa kamid ah iktisaabu maciishatin qofka inuu irsaaq iyo lacag iyo xoolo raasido oo xalaal ah maxaan ku yiraahdaa uu shaqeysto sida Soomaali badan ay maanta ugu nool yihiin wadamo kale aan wadamadooda ahayn haday tahay South Africa haday tahay yani wadamada galbeedka America iyo Yurub ay ugu nool yihiin sidoo kale faa'iidooyinka safarka waxa kamid ah cilmi iyo sidoo kale waxa kamid ah suhbatu maajidin safarka waxa laga yaabaa inaad yani dad badan oo wanaagsan asxaab ah aad ku samaysato isku fiican dihiin haday tahay dhinac maxaan ku yiraahdaa adduunyadaadi haday tahay dhinac aakhirad waxa laga yaabaa safarka in dad badan oo ku anfacay noloshaada wax badan ka bedelay aad ku yeelato yani intaas nooc ayaa jiro maxaan ku yiraahdaa safarka laga helo marka nooca ugu fiican ee safarka ama safarada noocyadooda ugu fiican kamid ah waxa waay safarka loo safro cilmiga qofka markuu u safro cilmi ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu u sahlaya yani maxaan ku yiraahdaa sida nabigeena sallallahu alayhi wasallam alayhi uu inoo sheegay wadadu ku tagi laha jannada man salaka tariiqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu tariiqan ila aljanna qofkii wada raaca ama safra asigoo raadinaya cilmi ilaahay wuxuu u sahlaya safarkii yani wada uu ku tagi laha jannada ayuu u sahlaya faa'iidooyinka marka safarka cilmiga ayaa kamid ah Soomaali badan marka ayaa jirto oo maxaan ku yiraahdaa wadamadan arday badan ay joogto wadankan Turkiga hadda aan ku noolahay arday badan oo kuman kun gaaraysa ku nool wax ku barato oo wax badan ka kororsado noloshooda wax ka bedelo sidoo kale faa'iidooyinka safarka laga helo waxa kamid ah aadaab iyo akhlaaq yani maxaan ku yiraahdaa yani wadanka aad ku nooshahay aad u dhalatay waxa laga yaabaa in dhaqamo qaar oo xun ay ka jiraan sida tusaale ahaan nadaafada waxa laga yaabaa yani marka tagto wadan kaleeto in wadooyinkiisa dadka ay wasakh ka ilaalinayaan nadaafadiisa ilaalinayaan geedaha ilaalinayaan xayawaanaadka kale dad kale nool maxaan ku yiraahdaa la xaq dhowrayo aad loo ilaalinayo intaasna waxay kamid tahay aadaabka ama qaab nololeedada safarada laga kororsan karo laga faa'iideysan karo faa'iidooyinkaas badan ka sokow safarka waxa laga yaabaa in qaldaad badan oo safar ah sidoo kale ay dhici karaan yani waxa laga yaabaa qaldaadka ugu waaweyn ee Soomaalidu galaan waxa kamid ah safarada tahriibka ah qofka inuu tahriib ku safro asigoo maxaan ku yiraahdaa laga yaabo raadinayo yani nolol cusub raadinayo inuu tahriib ku safro waxyaabaha qaldan bay kamid tahay wax qofkaas noloshiisa halis gali karto waa la xiri karaa dhibaato badan oo ku iman karto wuu dhiman karayaa sida in badan yani ilaahan ka magan galnay dhacdo sidoo kale qaldaadka safarka ay maxaan ku yiraahdaa aan sameeyno waxa kamid ah in dhaqamo xun wadankaas u safarnay aan ka soo guursano sida balwada
ama maxaan ku yiraahdaa dhaqamo kale oo maxaan ku yiraahdaa yani dhaqankaadi wanaagsan ama dhaqanka diintaadi aan ka mid ahayn qaldaadka kale Soomaalidu gaar ahaan aad u gasho waxa ka mid ah wadana u safartay wadan kale tagtay in muddo aad ku nooshahay luqadiisna ma baranayso ama si fiican uma baranayso waxyaabaha inaan iska ilaalino loo baahan yahay bay ka mid tahay haddii aan u safarno wadan aan muddo ku noolnahay luqadiisa inaan baranno dhaqankiisa intiisa wanaagsan inaan baranno kadibna maxaan ku yiraahdaa yani intaan ka celin karno wadankeena aan u elino aad u muhiimsan daawada maanta clipkeen intaas uu ku kooban yahay yani si faa'iidada dad badan u gaarto barnaamijka la wadaag asxaabtaadana gaarsii social media aan isticmaalno ee Facebook iyo Instagram-ka iyo YouTube-ka ay nagala socon kartaa kulanti wacan iyo mar kale wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh